kulan wacan oo wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo su'aal baad noo maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka hayno oo halkan idinku soo gudbin doona hadii eeba yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorona waxa kamid ah ururka al-shabaab oo galay buuraleyda Nogbeed ee ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida xilli taliyaha guud ee ciidamada New Booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida uu sheegay inuu gabi ahaanba soo afjareen kooxihii ururka argagixisada shabaab ee soo weeraray asbuucyo ka hor gudaha dawladda deegaanka Soomaalida dhinaca kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa berita u ambabaxaya magaalada Baarey ee ka tirsan gobolka Afdheer dhacdana xadka dalka Soomaaliya iyo Itoobiya qaybiya isla markaana xuduud la leh gobolka Bakool oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed waxa sidoo kale iyadana soo baxaya in madaxweynaha iyo sidoo kale xukuumadda madaxweynaha Cagjar ay diyaarinayaan gobolada qaar kood oo uu ka mid yahay gobolka Afdheer Shabeelle iyo sidoo kale Nogob in laga ururin doono hubka ay haystaan shacabka waxa maalmihii ugu dambeysay soo baxayay in madaxweynuhu uu ku hanjabahay in gobolada qaar kood laga ururin doono hubka waxaa dhinaca kaleeta iyadana isku soo aaday eedaymihii dawladda federaalku ay u soo jeediyeen ururka Onalef oo u dhaqaaqo xorriyadda ogaadeen ya ama dawladda deegaanka Soomaalida in ay la shaqayn leeyihiin oo gacan saar xoogan ay la leeyihiin ururka argagixisada ee shabaab iyo ururka shabaab oo maanta soo galay buuraleyda Nogbeed isla markaana ah dhul ay adag tahay in laga saaro hadii marba ay gudaha u soo galaan TPLF ayaa codsi la yaab leh u dirtay qaramada midoobay haddaba TPLF maxay tahay codsiga qaramada midoobay ay u dirtay maxay qaramada midoobay u qaban doontaa ama ay ka xalin doontaa dagaalka xoogan ee lagu jiro ee ay kula jiraan dawladda federaalka iyo Eritrea iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka Itoobiya dhinaca kaleeto wadahadal ayaa u furmay dawladda federaalka ee Itoobiya iyo sidoo kale TPLF xilli dagaal lagu hoobtay ee ka socdaan gudaha dalka Itoobiya TPLF ayaa waxay soo bandhigtay ayna sheegtay inay burburisay in ka badan 70,000 oo fadhiisimood oo ciidamada militariga dalka Itoobiya ay lahaayeen sheegashada TPLF iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka oo ayagana sheegay inay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay isla markaana sheegay magaalooyinka Sokoto iyo sidoo kale agagaarkeedaba inay TPLF ku jabiyeen ayna gacanta dib ugu dhigan ayaa soo baxaysa labada dhinacba waxay sheeganayaan guulo kala duwan oo ay ka gaareen dagaaladii dhowr iyo 10kii bari ee ugu dambeeyay socday jabhadda xoreynta Oromia ayaa iyadana waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay magaalada istiraatiijiga ee Yuki oo ku taala waqooyiga waleega ee deegaanka Oromia halkaasi oo ay sheegtay inay kumanaan ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Itoobiya ay burburisay waxaan gabi ahaanba warkeena ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada militariga ee dalka Itoobiya isagana maanta warbixin ka bixiyay dagaalada ka socda gudaha dalka Itoobiya waxaan gabi ahaanba warkeena aad kaga bagan doontaan xaaladihii ugu dambeeyay dagaalada lagu halaagsamay duqeymaha xoogan wada hadallada socday magaalada Addis Ababa ka socda qax iyo barakaca ka jira magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Amxaarada iyo Canfarta ayaan gabi ahaanba idiin soo gudbin doonaa waxaana barnaamijka qaybiga la noqonaya saaxiibkay wacana oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya waxana soo dhawow hadii aan ku bilowno xaaladda dalka Itoobiya iyo ururka al-shabaab oo soo weeraray gudaha dawladda deegaanka Soomaalida taliyaha guud ee ciidamada New Booliskana uu sheegay in gabi ahaanba dableydii asbuucyo ka hor soo weeraray gobolka Afdheer iyo Shabeelle la dhameeyay oo la soo afjaray haddana buuraha Nogob lagu sheegaya Nogobna ay tahay run ahaantii bartamaha dawladda deegaanka Soomaalida buuro isla markaaba jabhadii gashana ay adag tahay in laga saaro ay tahay bal maxay tahay xaaladda u fududaysa urka argagixisada inay Nogob soo gaadhaan oo buurahaasi ay soo galaan aad iyo aad baad mahadsantahay Santiago tan iyo xilligii ururka al-shabaab ay soo weerareen deegaamada xuduudda dhaca ee dhinaca gobolka Shabeelle waliba Afdheer oo ogeyn ururka al-shabaab weerarkii lixaadka lahaa ee isku fidiyeen dhammaanba labadaasi gobol inta 200 ku dhawaad kilomitir ay gudaha gobolka Afdheer u soo galeen Shabeelle dhinaceedana 100 kilomitir ku dhawaad ay gudaha u soo galeen arintaasi oo ciidamadu ay gacan bira ku qabteen isla markaana gabi ahaanba ururkaasi ay ku jabiyeen furimaha hore ee dagaalka iyo waliba goobihii ay soo galeen ayaa haatan waxaa soo baxaya warar la xiriira in ururka al-shabaab ay haatan gabi ahaanba isku fidiyeen buuraha Nogbeed oo ay adag tahay in cidii gasho inay gabi ahaanba laga saaro buurahan waa buurihii ururka Onalef iyo waliba ururkii Soomaali Galbeed ee ka dagaalamay gudaha dalka Itoobiya ama gudaha dawladda deegaanka Soomaalida ay ka dagaalamayeen isla markaana markii dambe ciidamada New Booliska markii la sameeyay ay gabi ahaanba ay ka saareen ay soo afjareen ururadii halkaasi ka dagaalamayay si kastaba haatee warbixintan oo haatan soo baxayso aanu helaynana waxay sheegayaan ama sida dadka deegaankaba ay xaqiijinayaan sheegayaan in ururka al-shabaab ay gabi ahaanba buurahaasi isku fidiyeen xaaladuna haatan ay tahay mid cakiran dhanka kale taliyaha guud ee ciidamada New Booliska oo warbixin siiyay warbaahinta shalayta ayaa sheegay in gabi ahaanba ay soo afjareen ururka al-shabaab
ee soo weeraray deegaanka Soomaalida waxaana uu sheegay inay farxadkooda uga daba tageen gobolada Bakool Bay iyo waliba dhinaca gobolka Hiiraan laakiin arintaasi gebi ahaanba waxaad moodaa inay noqotay hal bacaad lagu dhistay kadib markii ay soo baxday warbixinta la xidhiidha in ururka al-shabaab ay si toos ah haatan uga maamulayaan ogana arriminayaan buuraha Nogbeed oo bartamaha duldeegaanka Soomaalida dhanka kaleeto warbixin ayaa taa ka horeysay uu bixiyey taliyaha ciidamada liyu booliska warbixintaasi oo uu soo saaray taliyaha guud ee ciidamada dalka Ethiopia oo uu sheegay in ay dagaal kula jiraan Ogaden Fighters iyo waliba ururka al-shabaab oo ka dagaalamaya gudaha duldeegaanka Soomaalida arintaasi ayay dadka qaar waxa ay ka dhigeen mid lagu shactireystay laakiin haatan waxa ay noqotay mid ayadu macquul ah isla markaana marba hadii ururka al-shabaab ay ku jiraan gudaha buuraha Nogbeed arintaasi waxa kalita ay u fududeyn karo waa dadka deegaanka dhanka kale Santiago Berito waxa la filayay ayadana in duldeegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo wafdi oo hogaaminaya ay tagaan magaalada Baarey halkaasi oo ay rabaan inay kula kulmaan guddigii xog ururinta isla markaana ah guddigii amniga ee uu soo magacaabay madaxweynaha duldeegaanka Soomaalida kuwaasi oo gaaray magaalada Yeed Aato iyo waliba goobihii dagaaladu ay ka dhaceen oo ay ka mid tahay degmada Afcade iyo waliba deegaano kale oo ku hareeraysan dhamaanna waxay xoog ka soo ururiyeen goobihii ururka al-shabaab ay soo mareen iyo dadka deegaanka waxa ay ka aaminsan yihiin ururka dhanka kale waxa ay soo rikoodhayeen yani ay soo gudbiyeen xogo la xidhiidha intii ururka al-shabaab laga saaray goobahaasi ama looga celiyay falal amni darro oo halkaasi ka dhacay ka mid tahay qaraxyo iyo waliba miinooyin dhulka lagu xabaalay oo dadka deegaanka ay wax ka soo gaareen waxaan ogeyn dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd midii ka dhacday duleedka magaalada Yeed taasi oo bajaaj ay saarayeen 5 qof gebi ahaanba miina halkaasi kula qaraxday oo dadkii gebi ahaanba halkaasi ay ku dhinteen dhanka kale waxa madaxweynuhu u tagayaa gobolka Afdheer Shabeelle iyo waliba Nagob in dadka deegaanka hubka dhigis lagu sameeyo maadaama ururka al-shabaab ay halkaasi soo galeen waxaana arintan looga goleeyahay gebi ahaanba in la kala garto dadka shacabka iyo waliba dadka ayagu hubka wato ama hubka sharci darrada wata sifa loogu shaabadeeyo inay yihiin ururka al-shabaab si kastaba haatee dadku deegaanka arintaasi way ka soo horjeedaan waxaana ay sheegeen in haddaysan hub haysanin al-shabaab aan laga saari karin dhamaanba deegaanadan ay soo galeen oo ay adag tahay gebi ahaanba in laga saaro Santiago ayadana waxa soo baxaysa warbixin la xidhiidha in ururka al-shabaab ee soo galay gobolka Afdheer haatan ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo degmada Ceelkari iyo waliba agaarkeeda oo horey aanu u sheegnay wararkeennii hore in haddii Ceelkari iyo eeriyadeeda ay soo galaan ururka al-shabaab ay adkaan doonto gebi ahaanba in laga saaro arintii ayaana haatan aad moodaa in ururka al-shabaab haatan deegaanka uu isdhex fadhiyo wagaag haddii aynu ka gudubno xaaladda dalka ama dowlad deegaanka Soomaalida iyo soo gelistan ururka argagixisada ee shabaab ee lagu arkay buuraha Nagob ee ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida TPLF maanta codsi ayay u dirtay qaramada midoobay xilli wada hadallo ay u bilowdeen dowladda federaalka iyo iyaga dagaal xoogana ay ka socdaan gudaha deegaanka Canfarta Axmarada iyo xadka Suudaan iyo Ethiopia u dhaxeeya sidoo kale xadka Eritrea iyo gobolka Tigreega iyadana u dhaxeeya duqeymo xoogan ay socdaan bal adoo noo soo koobaya xaagay wax marahaya Santiago waad mahadsan tahay waxaa soo baxaysa warar la xiriira in warqad ay direen ururka TPLF oo maalmihii ugu dambeysay dagaal xoogan dhinacyo badan ama jahooyin kala duwan ay kaga socdeen kuwaasi oo ah dhanka waqooyiga dhinaca ay xuduudda la wadaagaan adhehe Tigreega iyo Eritrea iyo waliba dhanka waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Axmarada iyo waliba kan Canfarta dagaalo xoogan oo lagu mahadinin ayaa dhinacyada ku kala dhaxmaraya halkaasi walow xooga TPLF ay bumbuurinayaan waxyaabaha ay qabteen oo sheegeen in ka badan 70 fariisimood oo ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo waliba kuwa duldeegaanada ay lahaayeen inay cagta mariyeen haatan ay ku sugan yihiin deegaano fara badan ay kamid tahay Sokoota iyo waliba degmada Kobo waxaasi oo dhanba waxaa soo ka soo shacbaxaya ama soo baxaya wararka la xidhiidha in ay haatan TPLF ay codsi u dirayso qaramada midoobay ka codsanayso in wada hadallada la sii wado oo la dardar geliyo isla markaana la joojiyo duqeynta joogtada ee lagu haya dadka shacabka Santiago tan iyo intii ay bilowdeen dagaalkan aan la mahdinin ee dib uga qarxay dalka Ethiopia waxaa soo baxaya in diyaaradaha duuliyaha lahayn iyo waliba kuwa basaasiinta ee dalka China lagu hagaajiyo in ay si toos ah deegaanka macluumaad uga aruurinayaan macluumaadkaasi oo lagu bartilmaameedsanayo saraakiisha goobaha ciidamada ay ku tababaranayaan iyo waliba goobaha dadka ay markaasi ku sugan yihiin ku barakacay gudaha deegaanka Tigreeg si kastaba ahaatee qolada iyadu khibrada
ku takhasto dhanka caafimaadka waxay ka deerinayaan inay dhaawacii iyo sidoo kaleeto dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay qaraxyada iyo weerarada joogtada ee halkaasi ka socda inay haatan u dhammaanayaan dawola-aan iyo weliba daryeel-aan. waxaa sidoo kaleeto iyadana jirto warqadan ku qornayd in qaramada midoobeyd dowladda federaalka Ethiopia ay ku cadaadiso sidii loo furi lahaa marinada loo marinayo gargaarka dadka dhibaatadu ay ku haysto gudaha deegaanka Tigreega. waxaa sidoo kaleeto ayadana warqada aan ka maqlayn oo ku qornayd in gebi ahaanba dowladda federaalka Ethiopia lagu eedeynayo inay tacadi iyo weliba dhibaatooyin kala duwan ay ka geysanayso goobaha haatan duqeynta sida tooska uga socoto iyo weliba goobaha deegaanka dalka Eritrea iyo deegaanka Tigreega ay xuduudda kala yihiin oo iyadana dagaal 2 beri ilaa iyo 7 beriba uu si toos dagaalka uga socdo. si kastaba haatee xaaladda deegaanka Tigreega waa mid qasan iyadoo weliba duqeyntu ay kala joogsi lahayn oo ciidamada militariga dalka Ethiopia kuwa cirka ay si toos u duqeynayaan goobaha dadku ay isku yimaadeen. waa hagaag wada hadal ayaa u furmay TPLF iyo dowladda federaalka taliska Abiy Ahmed. dhinaca kalena dagaalo xoogan ayaa ka socda deegaanka Canfarta iyo Axmaarada. Sokoota ciidamada militarigu waxay sheegeen inay dib u qabsadeen deegaanadaas oo dhanna ay ka bixiyeen ciidamada Tigreega laguna jabiyay guulo waaweyn ay ka gaadheen. halka Tigreeguna ay sheegeen in ay xeelad militari uga baxeen. wada hadaladii mar hadday socdaan soo ma ahayn in xabadana la joojiyo misane wada hadaladii wada hadalada socda ay dagaaladuna soconayaan see wax yahay. horta wada hadaladan waxay soo bilowdeen kadib ergeyga gaarka ah ee Mareykanku uu soo magacaabay dalka Ethiopia iyo Geeska Afrika sifo uu xasiliyo dagaalada halkaasi ka socdo. shalayto waxaynu wararkeeni inugu sheegnay in ay jireen diyaarad ka kacday magaalada Addis Ababa taasi oo ku wajahneed magaalada Makale isla markaana ka soo qaadaysay 2 sarkaal oo ku mathalaya wada hadalada ka dhici doona magaalada Addis Ababa iyo sidoo kale wada hadalada ka dhici doona gudaha dal kamida Afrika. arintaasi waa ay suurta gashay labadii sarkaal waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada Addis Ababa. wada hadalada hordhaca ayaana bilowday oo laga hadlayo sidii lagu dhexdhexaadin lahaa dhinacyada in ama lagu khasbi lahaa sidii lagu hirgelin lahaa xabad joojin labada dhinacba ay ku qanacsan sifa dhaawaca iyo sidoo kale meydadka loo kala qaato. arintaasi ayaana lagu cadaadinaya dhinacyada. dhanka kaleeto waxaa lagu khasbayaa in gargaarkii u socday dhanka Tigreega in gebi ahaanba ciidamadii ay xanibeen maadaama gargaarkan marar badan lagu eedeeyay in hay'adaha caalamiga ay ku dhaxqarinayaan halkaasi hub iyo weliba saanad kaleeto oo loo wado ciidamada Tigreega. iyadoo arintaasi jirto haddana waxaa socdo dagaal dhinacyada u dhaxeeyo wada hadalkii oo socdo oo weli hordhac yani natiijooyin kala duwan oo hordhac laga helayo ayuu dagaalka halkiis ka socdaa. duqeyntu way sii socotaa. dhibaatooyin kala duwan ayaa ka socda gudaha deegaanka Axmaarada iyo Tigreega iyo Canfarta weliba dhanka kaleeto magaalada Kobo iyo weliba magaalada Sokoota dhinacyadu waxay sheegayaan inuu midba midka kaleeto gacan ku hayteeda hayso walow Sokoota gebi ahaanba haatan ay ururka TPLF ay xaqiijiyeen in iyagu ay iskaga baxeen. dhinaca waqooyiga Wolo iyo gobolka Wolo guud ahaantiiba waxaa iyagana ka dilaacay dagaalo xoogan kuwaasi oo ku dhexmaraya dhinacyada walow ciidamada dowladdu ay sheegayaan inay horumar weyn ay ka gaareen dagaaladii halkaasi ka socday. waana mid keentay in haatan TPLF warqad ay u dirto qaramada midoobay iyo sidoo kale wadamada ay haatan ay la sheegayeen inay ku hawlan yihiin dhexdhexaadinta dhinacyada u dhaxayso. ugu dambeyntii wacan uu jabhadda xoreynta Oromia waxay sheegeen inay qabsadeen degmo istiraatiiji ah oo maalmihii ugu dambeysayba dagaalo ay ka socdeen. degmada lagu magacaabay Yuki isla markaana ah waqooyiga gobolka Walega ee deegaanka Oromia. shalayna waxay sheegeen in ay ku sugan yihiin caasimadda Addis Ababa korkeeda ayna qabsadeen warshadaha ku yaala caasimadda Addis Ababa korkeeda isla markaana ay burburiyeen saldhigyo waaweyn oo ciidamada militariga ay halkaasi ku lahaayeen. dawladuna waxay xoog saaraysaa oo mar waliba eedeymaha iyo dagaalka ay kula jirtaa Tigreega. kuwana dagaal ayay wadaan oo iyagu waxay soo bandhigayaan guulaha ay gaadhaan mar waliba oo maalinba maalinta ka dambayso guulo waaweyn ay gaadheen. waxay sidoo kale dowlatus ku sameynayaan caasimadda Addis Ababa korkeeda. bal maxay tahay dowladda federaalka culayska ay ka dareemaysa dhinaca Tigreega ee aysan ka dareemaynin jabhadda xoreynta Oromia? Santiago Oromada culaysaas lama saarayo. waxaan ogeyn dagaalkii ka qarxay 2021 dalka Ethiopia in uu ahaa mid u dhaxeeya qowmiyadda Axmaarada, Canfarta iyo sidoo kale Tigreega. dagaalkuna haatan weli waa sidiisii waa mid ku salaysan dhul haatan Tigreega waxa uu ka cabsanaya Abiy Ahmed hadii la heshiiyo inuu kursigiisa waayo isla markaana ay Tigreegu ka aarsadaan qowmiyadda Axmaarada iyo sidoo kale Canfarta oo ayagu dagaalo kala duwan kula jiro deegaanka Tigreega. laakiin Oromada saameyn saasaba ma laha ahmiyadna lama siinayo
waxaan ogeyn intii yarayda dagaalku u taagnaa 5 bilood in ururkan oo la riixay isla markaana la burburiyey fadhiisimahoodii iyo weliba goobihii ay haysteen haatanna waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo sidoo kaleeto inay baalla dilacsadaan oo haatan ay isku soo fidiyaan agaarka magaalada Addis Ababa iyo sidoo kale magaalooyin kaleeto shalayta waxay soo bandhigeen natiijooyin ay sheegeen inay xaqiijiyeen dagaaladii ay kula jireen militariga dalka Ethiopia waxaana ay sheegeen in ay ku dhow yihiin magaalada Addis Ababa oo u jiraan in ka yar 70 kilomitir si kastaba haatee xaaladdu waa si barakamala ay noqonaysaa dhinaca oromada waxay bilaabeen isbalaarsi waliba hub urursigii u dambeeyay oo ay rabaan inay guluf colaadeed ku qaadaan deegaanka axmaarada iyo waliba taliska magaalada Addis Ababa waxaa iyadana ay soo taraysa in wadamadii Masar iyo sidoo kale Suudaan oo dagaalka lagu eedeynayay inay haatan bilaabeen ururinta mucaaradka dalka Ethiopia kuwaasi oo ka digaya caasimada wadanka Masar ee Cairo halkaasi ay ku arurinayaan isla markaana la rabo in mar kaleeto qoryaha iyo hubka la isku dhiibo dhammaan mucaaradka dalka Ethiopia sifa ay meesha u dhaafiyaan taliska Abiy Ahmed oo asagu gebi ahaanba aan xiriir la lahayn wadanka Suudaan Masar iyo waliba Soomaaliya si kastaba haatee dagaalku waa mid sii fidayo dhinacyaduna guula ay sheeganayaan waxaana isa soo taraysa haatan natiijada hordhaca ee ururka TPLF iyo dowladda Abiy Ahmed ay haatan uga socdo ama wadahadallo uga socdo magaalada Addis Ababa in ay noqon doonaan kuwa midho dhalo sida ay sheegeen qaramada midoobay iyo waliba ergada gaarka ee Mareykanka iyo wadamada waaweyn ay u soo magacaabeen daawadayaal wadahadalladan Addis Ababa ka socda ee u dhaxeeya TPLF iyo dowladda federaalka ayaa ku soo aadaya xilli dagaalo waaweyn ay ka socdaan gudaha dalka Ethiopia inta badanna Tigreegu ay sheegeen deegaanadii dagaaladu ay ka socdeen inay gebi ahaanba gacanta ku dhigeen deegaanada ay ka socdaan waxaa ka mid ah deegaanka Axmaarada iyo midka Canfarta sidan hore inuu soo sheegnayba waxayna Tigreegu sheegeen inta badan inay ciidamadoodu ay maamulayaan oo ay gacanta ku hayaan dhinaca kale eedayntii dowladda federaalku ay u soo jeedisay ururka ONALEF ee ka diiwaan gashan deegaanka Soomaalida ayaa iyadana noqonaya mid cadaadis saarahaya shacabka dowlad deegaanka Soomaalida oo cabsi weyn ay soo wajahday tan iyo dowladda ku dhawaaqistii ay sheegtay in ururkaasi uu gacan saar la leeyahay inay la shaqeeyaan ururka argagixisada ee shabaab kooxahan shabaab ka tirsan ee la sheegay inay soo galeen buuraha Nogob ee ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa noqonaya mid cabsi weyn gelinaya saamilayda siyaasadeed iyo dadka ka aragti duwan dowladda deegaanka iyo xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar waana cabsi weyn oo soo food saartay shacabka iyo sidoo kale siyaasiyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ee ka aragti duwan xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar bal waxaynu oogi doonaa wixii ka soo kordha iyo xiisadda ka taagan gudaha dalka Ethiopia isqaqabsiga muranka beegsiga cuburinta iyo sidoo kaleeto in aaman gabi ahaanba ra'yiga ka duwan xukuumadda markaasi jirta Ethiopia aan marna la ogolaanin oo la cuburinayo xabsigana loo taxaabo wixii ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan idinku soo tabin doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idinka tegaynaa amaana Allah